بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا أم زبير سلمان channel هدا يقو عصب تاي سبسكرايب كان بليل كان فرو أصحابي سو دوادا ما انتو حانو وضع موضوع كسابسن عافيمادكا سوئه waxaa maanta ku saabsan yahay caafimaadkeena vitamin D insha Allah khayr soo dhawaada meel walba joogtiin vitamin D markuu jirkaaga ka maqan yahay siyaabaha lagu garto ama meelaha ku xanuunaya aan rabaa maanta inaan ka hadlo qaybaha ka mid ah jirkaaga oo aad ka dareemaysa in oo xanuun waxa ka mid ah garabka waxa ku xanuunaya marka oo vitaminka khaasatan vitamin D oo kugu yar yahay garabka ama gacanta zaaid ku xanuunaysa waxa ka dareemaysa yani in oo wax gariir camal ah ka dareemaysa sidoo kale vitamin D marka uu kugu yar yahay waxa dareemaysa maanta dhan inaad hamaansaaka aad hamaansanaysid wax oo yani aad celi karto ama xakameyn karto ma ahan daqiiqad gudaheeda waxa hamaansanaysa 3 jeer ama 4 jeer marka qofka saas camal marka iska arko waxa jirkiisa ku yar vitamin D markii garabka oo ku xanuuno iyo markii oo aad hamaansaalkaaga oo bato qof walba soo yaqaan hamaansi aan ka wada asxaabteeda qaaliga sidoo kale tan saddexaad waxay tahay hadii aad isku aragto in dhabarka oo ku xanuuno sidoo kale surka oo ku xanuuno wareega madaxa hoostiisa oo ku xanuuno waxa kugu yar vitamin D ga markuu kugu yar yahay waxa ku xanuunay lafta dheer ee dhabarka waxa sidoo kale ku xanuunay qoorta sidoo kale waxa ku xanuunaysa surka jeegada hoose madaxa wareega waa ku xanuuna waxa dareemaysa xanuun oo meel oo ka imaade ama meel oo u socdo la garanaynin jirkaaga dhan waxa dareemaysa daal sidoo kale vitamin D markuu kugu yar yahay waxa ku xanuunaysa asxaabteeda qaaliga sinta waxa ka dareemaysa in sintaada ay kala baxday camal ama wariq ay ku dhehayso sida qof oo yani oo jiis camal marmarka qaar u soconay marmarka qaar hatta waxa dib kugu naqanaysa inaad fadhi ka kaadiso dhibay kugu naqanaysa marka waxyaabahaas aad isku aragto aad socon karin oo maxaa la dhahaa xanuunkaas aad ka dareemaysa sinta waxa kugu yar vitamin D sidoo kale vitamin D ga markii oo jirkaaga oo ku yar yahay waxa dareemaysa maxaa la dhahaa maanta dhan yani afkaaga waxa ka soo buuxsamayo cantuuf sidoo kale vitamin D ga markuu kugu yar yahay jirkaaga waxa dareemaysa fikir joogto aan dhamaad lahayn waxaad ka fikiraysid ma ogid inta badan waxa tahay qof maqan oo iska maqan meesha waa fadhisaa maqan jooga tahay waa fikiraysa fikirka ziyaado waay marka isku aragta calaamadahaas fikirka ziyaadaha waxa kugu yar vitamin D ga vitamin D wuxuu ka mid yahay vitaminada u baahan jirkeena vitamin kasto muhiimad gaar ah ku leeyahay qofka bini'aadamka ee jirkiisa hal vitamin inoo ka yaraado ma loo baahno waxa la rabaa dhamaantooda inay isku dheelitirnaadaan ay ahaadaan wax oo jin ah sidoo kale vitamin D ga markuu kugu yar yahay waxa ka dareemaysa jirkaaga in muskaha ama yani dhinaca oo maxaa la dhahaasi boodada lugaha hoos kubka lugaha hoos meesha laga soconayo sidoo kale gacmaha laabatada meelahaas dhan haday ku xanuunaan waxa kugu yar vitamin D waxa ku xanuunaysa lugaha dhabarka jilbaha kubka boodada dhammaan way ku xanuunayaan qofkii waxyaabahaas isku arko waxa ku yar vitamin D sidoo kale qofkii isku arko in xisaab aan dhamaad lahayn oo maskaxdiisa ku mashquulsan tahay oo yani mar walba markii kasii dambeeyo oo fikirkiisu ziyaaday wuxuu ka fikirayo qofkaas aan lahayn ama oo ogan hadii la weydiyo maxaa kugu dhacay ama maxaa ka fikiraysa oo hal xaba ka sheegi karin qofkaas waxa ku yar vitamin D ga waxa waaye vitaminada jirka saan hore aan u sheegay dhamaantood way muhiim laakiin way kala sii muhiimsan yihiin marka insha Allah khayr maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waaye vitaminkan oo ah vitamin D siyaabaha lagu garto qofka markii oo isku arko in calaamadahan hadda aan sheegay qayb ka mid ah oo jirkiisa oo ku siyaado marka jirkaaga oo ku maqan yahay ama oo ka maqan yahay
waxyaabaha kheyr waxaa kugu soo ziyaadaya dareentaasoo ah in marba meel ku xanuunto, mar dhabarka lagaa qabto, mar sinta ku xanuunto, mar surkii ku xanuuno, salka mar ku xanuuno. dadka qaar waxaa jiraan ama markay fadhiistaan fadhiga aad dhib ugu yahay oo markay kacayaan oo yacni aad u cawaadayaan aan awoodin inay kacaan. kuwaas waxaa ku yar fitamiin d. fitamiin d-ga markuu kugu yaryahay garabka waa ku xanuuna. wax culeys saas ay ma qaadan kartid. wax yar haddaa culeys aasaas aa qaado waxaa dareemaysaa xanuun zaa'id ah. sidoo kale markii aad soconaysid wax yar haddaa socod waxaad dareemaysaa inaad neeftuurayso oo lugahaagaba waxaa ka dhex yeeraya qaac 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 qaac. waxaa dhee tiir soo go-ooyo miyaa, maxaa geed soo jabraw miyaa, miskale guriga tiir ka soo go-iraw miyaa kuugu soo duumaayo. marka oo jirkaaga qacqacdaas oo ka yeerayo marba markii kasii yareeyo oo kasii dambeysaan dhihi lahay asxaabteeda qaaliga waxaa jirkaaga kasii yaraanaya fitamiinka fitamiin d. fitamiin d-ga wuxuu u baahan yahay iyo yacni waxyaabaha loo isticmaali doono insha allah fideoga xigaan ugu soo sheekey doonaa. laakiin maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay in qofka markii oo isku arko calaamadahan oo tago isbitaalka ugu soo dhow si oo caafimaadkiisa ugu dadaalo. haddii oon jecleen dadka qaaraa waxay aad u nacban yihiin inay isbitaal ku degdegaan. waxay sameyn karaan inay cuntooyinka ay cunayaan jirkooda si ay yacni caafimaadkooda ugu dadaalaan. cuntooyinkii hore ay cuni jireen iska bedeli karaan si cunto kale ay u cunaan. marmarka qaar waxaa arkaysa adiga oo yacni saas u xanuunsan oo waxba aadan awoodin oo howl aa qaban karin, yacni hadalkii ku dhiwaayo. sidoo kale xanuunka madaxa ziyaada marba markii kasii dambeeya madaxaaga waa kuugu sii siyaada. adigoo iska cunayo xanuun baabi'iya intii xanuun baabiyaha jirkaaga oo ku jiro waa caafimaad qabtaa. markuu xanuunkii oo xanuun baabiyaha jirkaaga oo ka baxo xanuunka meeshiisa kusii naqanaa. marka waxaa laba huraan ah mar walbo inaad adiga caafimaadkaaga aad ku dadaasho, aad aado isbitaalka kuugu soo dhow, aad iska qaado dhammaan dhiiga fitamiinada. markaa iska qaado waxaa lagu sheegi doonaa fitamiinka jirkaaga ku yar iyo fitamiinka jirkaaga oo aboosta ah, yacni meeshii la raba taagan. marka sidaas darteeda haddii aad isku aragto fikirkan joogtada aan dhammaadka lahayn, aadan ogeyn waxa aad ka fikiraysa, muhiimadda waa taas. marmarka qaar waxaa arkaysa dab oo ku daaran oo adigana adduunkaba joogin, meel kale iska jirta dabkina saas oo u daaran yahay. laga yaabo ilmo yar inay guriga kuu joogaan, laga yaabo inay saliid kuu saaran tahay inuu holco oo nafsadaada khalqiil ugu gasho. markii intii waxaas dhan dhicin waxaa fiican inaad oo yacni haraka aad u samayso, yacni aad u dhaqsato si oo caafimaadkaaga aa u ogaato. insha allah kheyr. waa Subeer Salmaan. maanta waxaan ka hadlayna waxa waaye fitamiinka iyo fitamiin d iyo siyaabaha lagu garto xanuunka jirkaaga oo yacni markii oo ka maqan yahay maxaa fitamiinkaas. fitamiin d-ga markuu jirkaaga maqan yahay saa hor u sheegay, fikirkaaga oo ziyaada, xamaasashaalkaaga oo badato, sidoo kale qoortii oo ku xanuunto, surkii oo ku xanuunto, dhabarkii oo ku xanuuno, lugtii oo ku xanuunto, sidoo kale salkii oo ku xanuuno, markaa fadhiisato kicitaankaaga oo aad dhib u noqdo, sintii oo kala baxdo, xididaha oo ku xanuuna, xididka jirkaaga mid ah marmarka qaar aad u kheelina akiraan ku dhahay. waxa kuu sheegaya batriyada markii moobeelka oo ka dhamaado waxuu sheegaa calaamad oo dhawaaq yar oo sameynaa, jaajar loo soo qoraa. marka oo jirkaaga oo ka dhamaanayna sidaas oo kale waaye, wuxuu sameynaa calaamad oo sameynaa waa qeylina. xididka jirkaaga, lugtaada kow iyo gacantaada zaid ay u qeylinayaan. markaa isku aragta calaamadahaas waxaway fitamiinkiya gabaabsi ah ama kaa dhammaan rabo iska gaar waaye. haddii aad cuntooyinka aad oo cunaysto oo fitamiinka u fiican iyo haddii aad isbitaal tegaysto oo daawooyin lagu soo siinayo. marka mar walba waxaa kuu fiican inaad ku dadaasho cuntooyinka laga qaato fitamiin d-ga iyo sidoo kale iyo waxyaabaha laga helo fitamiinka, khaasatan fitamiin d-ga inaad oo yacni aad samayso. insha allah kheyr. asxaabteeda qaaliya, dad badana waxay ku wareersanaayeen markay fadhiistaan kicitaanka ay kacayaan maxaa yacni sida duq camal gabdho yaryar oo waxaa arkayaan ku dhahay markay kacayaan cawaadayaan, cawaadka adduunka ka yeerayo. sababtaasna waxa waaye wax kale ma ahan. markii baaritaan la sameeyey waxaa la ogaaday in qofka saas u cawaadayo uu yahay qofka ku yar fitamiin d-ga.
insha allah khayr. sinta hadday ku xanuunayso sidoo kale soomaalidu waxay dhahaan sindibi ay dhahaan, wax ka jiro ma jirto. sindibi iyo sin oo lo iyo waxaas ma jiraan. meeshaan waxaa jiro qofka biniaadinka ah wuxuu ku socdaa jiro. haddii jaajarka oo kaa dhammaado waxaa u baahan tahay in jaajar lagu geliyo, waayo markaad mobile isticmaalayso qofka biniaadinkana saas wuxuu u baahan yahay in la jaajareeyo, wuxuu u baahan yahay in la falaasho, wax walba oo sida mobileka uu u baahan yahay qofka biniaadinkana waa ugu baahan yahay. saas horta mar walba inaan maskaxdeena aagelina loo baahan yahay. mobilkan hadduu buuxsamo waa la falaashaa, haddii oo maxaa la dhaha bateriyada ka dhamaatana waa la jaajareeyaa. adi nafsadaada marka maxaa kuu diiday in markii aad wax isku aragto inaad adiga isdaaweyso oo yacni oo adiga isku laakiin markii dadkeeni hore waxay iska dhahayaan waxaas waa la ogyahay sindibiyaa la dhahaa, qofaa yacni maxaa la dhahaa madax xoogo yarka weynaana waxaa la musmaara la keena madaxa laga kabiyo yacni madaxa laga gubaa, madaxa yaraana. waxaas dhan jaahilnimo waay. sidaas darteeda marka aad isku aragto calaamadahan waxaa kuu fiican inaad adiga nafs ahaantaada aad isku dadaasho, aad cuntooyinka u fiican maxaa la dhahaa fitamiin D-ga. sidoo kale cajarada xigta waxaan kasoo hadli doonaa cuntooyinka aad cuni karto iyo waxyaabaha aad sameyn karto si oo jirkaaga oo noqdo jir oo 100% oo caafimaad qabo insha allah khayr. dhammaanteena allah na wada caafiyo, inta xanuunsan iyo inta aan xanuunsaneyn dhammaan ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaadkii noo siyaadiyo insha allah khayr. waa Musubiir Salmaan, waxaan leeyahay Soomaaliweyn meel walba joogtiin. haddii aad igu cusubtiin subscribe-ka dhac igu siiya, like-tana baac igu siiya, commentigana joog igu siiya. soo dhawaada, wax waa iga faa'iidi doontiin. asxaabtiina kale la wadaaga, share gareeya insha allah khayr. wax walbo idin fiican nafsadeedu fiican waa idin soo tabi doonaa. mar walbana waxaan u taaganahay sida walaalahayga Soomaaliyeed meel walbay joogaan, waxaan aniga aan ka faa'iido inikana idin faa'iideeyo insha allah khayr. mar walbana waxaan leeyahay aan isla socono. asxaab kale qaali ah noogu soo biiraan, like-ta dhac igu siiya insha allah khayr. soo dhawaada, yaa la ismartiyeenin marti ya abbaay waa sheekada kowdhaha insha allah khayr. maanta waxay ka shidan tahay caafimaadka, sidoo kale waxay ka shidan tahay فيتامين ديغا إن شاء الله خير. سومالوين وحاني ليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلون تدنبا وحيس له لصعدة عجالة لبات عن أقول هات لدونا عنتوين